doorasho waa wixii aynu ku heshiinay ee sharciga ku qoraa xaaladaha maanta taagan xaalad abaareed oo culus baa taagan oo bilow awlibana waqtiga abaarta aynu ku jiraa waa January February iyo March iyo January oo iska bilowa intaas waa abaar si aynu Ilaahay ka arki jiray Ilaahay baritaan roobka oo shubi kara waxaan leeyahay ummadanu maanta ma geli karto doorasho iyadoo aan roobdiin inta dhibaca roobku da'ayo ee la arkayo roob in doorashada la joojiyo aniga ila tahay doorashada inta roob la arkayo in la joojiyo haddii wiiga la galo laakiin in roobka lagu xidho aniga agteeda wax ka jira maaha nimankaas waayo hawshii loo dirtay kuma filla anigu waxaan lahaa intay maanta iscasilaan xilka iska dhiibeen waxay yidhaahdeen kuma fillin wixii dhibaato hor taagana dadka hawsha eegaan laakiin anigu waxaan arkaa dad aan xor ahayn oo aan ku fillayn oo aan waxba kala saari karin oo waqtiga qiimeyn karin oo waxa taagan aan garanayn oo indhala baan u arkaa dad Ilaahay indhaba marka ka xidhay yaa bahalkii baan gaarigii loo jiray waxa ku xidhan inta yare wajigiisa hortiisa buu eegaa marka ma garan karayaan waxaan taaganba haddana waxaan qiimeyn karaynin in wax loo dhibto ma ahayn intaas ay naga filan aragooda iyo barashadooda iyo taladoodaba waxaan lahaa way ku fashilmeen kuwaas saldhigaas waa dhibaatay weyn oo inagu timi qaranka Soomaaliland waqti ku dumi lahayd nimankana lacag bay rabaan ma soconayso oo ma keeni karo oo been bay isu sheegeen ninkii diiwaan keenaya bal aynu saragna cid keenta waxaan arkay halis ku jirta aan xaalad ma jirin dalkana way baabiyeen waana baaba mana jiro Djibouti baan maanta kula socon oo Ethiopia xaaladaheena aragta oo adduunyada Ilaahay baa iska soo taagtay wixii loo dhintayna ma aha waana la isku arkaya tan doorasho ma qabanayno kuwan xsaabtina in xaalada runta ka hadlaan baa loo baahan yahay hadday saldhigtay iyo hadday doorasho tahay mowqif cad iyaguna inay ka qaataan